مصادعه جمهورية الصومال عن الرسول داود يالك هسا كيسان وحلبان محمد أبيب ninkii isaga magaalada Boorama maanta waa shitay gobolka Oodal maanta isaga ay u kala xiranta Boorama maanta iyo gobolka Oodal wax allaale iyo wixii uu Abiib u dhaxon bay qaadanayaan dadka inta la eegay arkiisay meesha saal isku soo baxay doorashooyinka Mareykanka ma aha dadka inta la eeg malaayiinta aniga isma lahaynba Boorama dad inta la eeg yaa ku nool خلقي إسقوطها بحي ماشى معناتها 2 مليون كما يرينا والله يوحي ما يربع ما دمر كبا معيال كبا ما رجل ونابا وحو دنبا ودياشي دقيل ولا تصبح معناتها يقول درين كودا عبر يو حلمان أبيب ما أنت تقول وين بوقفة ديا عروة كاس يا قلت لا سنكرو عروة كاس يا قلت لا سنكرو waxaa si hore u soo noqon doonaa Faranqeynta arrimaha ku geedaaman iyo arinta Abiib maanta la gudboon maxay tahay maadaama taageero inta la eg gobolkiisii dadkiisa ku haysto bal markuu waxay la daawataan muuqaalada ugu dambeeyay ee xildhibaan Abiib laga soo duubay isagoo la hadlayo jamaahiirta reer Oodal مصادعه جمهورية الصومال عن الرسول عن الرسول مصادعه وكجوابتين وحنا كجوابتين اسكو صباح عرله واحد كجوابتين اسكو صباح من نمله واحد كجوابتين go'aan raganimaad kaga jawaabteen hadii inta ka soo noqono aniga Faranqeynta hay'adin dambayso bal marka waxaan ku bilaabi doonaa laba muxallil oo arrimaha geeska si fiican oo falanqoodo wax badan ka oga arrimaha koow wax ku bilaabi doona saaxiibka Shiire oo ina warrami doono warqad cusub oo hadda Soomaaliland soo saartay oo xilka qaadistii iyo xasaad kala noqoshadii xilaan Abiib mataqaan ka turjumayso Shiire oo soo dhaweynaya markuu u horeyso bal waxay la dul martaa maanta wad arkaysay xilaan Abiib iyo awoodda uu ku leeyahay gobolka taageeradiisa intee leeyihiin haddana Soomaaliland waxay muddaa inay ku dhiiradeen in markale warqad ay soo saaraan ayna doonayaan xilka xayuul lagu sameeyo xildhibaan Maxamed Abiib بدانا ومحسنتهاي محمد أبيب iyo Somaliland gaar ahaan xukuumadda waxba kala haysta ciidays haysata horta si loo fahmo waa xukuumadda Somaliland iyo Maxamed Abiib xukuumaduna Maxamed Abiib waxay ku haystaan waxa kamid aha in uu qaabka uu dhaqmayo ama cadaadiska iyo waxyaabaha siyaasadda la xiriira ee uu soo saarahayo iyo waxyaabahaasi oo kaleeto waxaad moodaa in kolkii aad fiiriso iyaga oo biilo ugu tukubahay markii horeetaba oo sida uu sheegay isku dayo dil uu ka badbaaday gaarigiisa laga qaaday dhibaatooyin badan yaa waxa loogu soo gabaday hadda in la yiraahdo Djibouti buu safaaradda Soomaaliya intuu tagay uu kula kulmay uu beeniyay shirkiisii jaraa'id ee waxyaabaha badan kaga hadlay ayuu ku beeniyay mana jirto midaas sida uu sheegay wuxuu yiri waxaabigu uu tusaale soo qaatay kamid ah xildhibaanadii tagay sawirada laga soo qaaday aan wax sawiro Djibouti laga qaad ma haysan inay taasi been tahay bay ku tusinaysaa buu yiri marka warqadan la doonayo in lagaga qaado xasaanada waxay tahay micnaheedu Somaliland Muuse Biixi iyo xukuumaddiisa oo u adkaysan la cadaadiska iyo hadallada xaqiiqada ah ee Maxamed Abiib ka soo yeeraya ee ku saabsan
Somaliland la wada leeyahay ama in ay xuquuq helaan dadka reer Somaliland ay u siman yihiin kali beesha dhaxa hawshu aysan ahaanin midaas ay ahayd waxaa dhacday marka in Cali Xamuud oo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Somaliland aha siyaasiyiin mas'uuliyiin kala duwan dhinacyo kala duwan oo xitaa reer Somaliland kale ama beesha dhaxa ay dhamaantood ka soo wada horjeedsadeen ayaa haddana guddiga joogtada ah ee baarlamaanka Somaliland ay soo saareen waraaqdaasi waxaad moodaa in ay ku xalaashanayeen ama ay ku sheegayaan in xeerlaaliyaha guud waraaqdii uu soo gaaray ay soo gaartay lana gudageli doono baarista iyo arrintii xasaanadka xayuubinta Maxamed Abiib in la gudageli doono waxay cadaysteen xaq u lahaanshaha ay xaq u leeyihiin inay arrinta iyagu baaritaan ku sameeyaan waxaa kale oo ay cadaysteen xaq u lahaanshaha haddii qof ka mid ah baarlamaanka uu khaladaad sameeyo in laga qaadi karo xasaanada ay iyadana xalaashadeen si guud markaan u fiirino waraaqdan oo ku soo beegantay maanta Maxamed Abiib oo magaalada Boorame si weyn loogu soo dhaweeyay waxa aad moodaa horta in dhinac markii laga fiiriyo aysan socon doonin haddii ay dhacdo inay socoto oo ay ku sii adkaystaan Somaliland iyo Faraton oo aad moodo in uu si weyn uga xumaaday kolkii hore tana cabsiba waliba ku jirtay oo moraal ka helay dadkii faraha badnaa iyo dhinacyadii kala duwanaa ee arrintan ka hadlay ee Maxamed Abiib dhaliilahayay uu ka helay garab uu ka sii helay aad moodo iyo dhiiranaan in ay wali xildhibaanada guddiga joogtada ah ee baarlamaanka Somaliland ay ku sii cadcad yihiin in ay qaadi doonaan tallaabista baaristii ayna hawshaasi bilaabatay dacwadii ka dhan ahayd Maxamed Abiib ayna ku sii socon doonaan laakiin waxaad moodaa go'aan waxaa jira ay gaareen xildhibaanada 13 xildhibaan ee ka soo jeeda gobolka Awdal hal gabar ayaa ku jirta 12 xildhibaan oo raga iyo hal gabar dhammaantood waxa ay go'aan ku wada gaareen oo ay isku raacsan yihiin haddii Maxamed Abiib arrintaas ay dhacdo in xilka laga xayoobiyo hadday taasi dhacdana waxaa meeshan ka muuqata oo imanaysa in Somaliland tiilaas caanood baa fashil ahayd fashilkii ugu weyn ay gaarayso oo hal qoys meesha uu ku soo harayo halka qoysna suurtagalnimada inuu dawlad noqdo ay adkaan doonto iyo xitaa in ay beelaha kale aaminaan haddana waxay noqon in qoyskii intuu dib isugu sii noqdo iyagii dhaxdoodii inay isa sii kala faraan oo ay dhinacyada galbeedka iyo bariga iyo intay sida isu qaybin jireen isu qaybiyaan ay halkaas ayaa soo bixi doonta waxyaabaha maanta uu Maxamed Abiib aad ugu celcelinay waxaa ka mid ahaa kursiga madaxweyne ku-xigeenku wuu ina gowracay wuu ina dilay ree Awdal oo madaxweynahaynu rabnaa tugacmaa ka hortaagay buu cali iga dheero iga booda taa micnaheedu waxay tahay in uu leeyahay maanta Somaliland la sheegayo shalayna halkaan lagu aasaasay maantana annaga Somaliland magacii Somaliland annaga unbuu nagu jira hadda annagu ka baxno Somaliland nimadii meeshaas u dhamaatay cid iga sarreyn kartaa waa iyaba anaba Somaliland magaceeda maanta ugu xiran yahay ma jirtaba marka waa arrimahaas wey aad u maasantahay bal waxaan u yeeri doonaa muxallil siyaasadeed oo isna mataqaana si weyn geeska uga faalloodo Cornel Fargood baa wax ku weydiin doona asagana iyo siyaasadan ka soo cusboonaatay dhankan gobolka Awdal gaar ahaan hadda markii Abiib uu tagay waliba xilka qaadistan iyo xasaan kala noqoshada Somaliland hadda ay soo dabdargelisay Cornel uu soo dhaweynaya marka hore bal waa arkiisay maanta jamaahiirtii iskugu timid muxuu ahaa gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Boorame haddana Somaliland waxaa moodaa inay dardar gelisay marka maxaa kaaga muuqday hadaladii maanta ka soo yeeray xildhibaan Abiib horta hadallada xildhibaan Abiib waan dhageystay dhowr qaybood bay isugu jireen qayb waxay ahayd fariin uu dirahayay shacab weynaha ku nool deegaanadaasi ama Awdal state fariin uu dirayay cuqaasheeda waxgaradkeeda fariintana deyn dhawaalaba way soo socoto waa waday laakiin maanta waxaad moodeysay fariin uu ku khatimayo amaba uu ugu dirayo atii ugu dambeysay ee uu shacabkaasi ku gubaabinayo amaba uu xuquuqdoodii ku doonayo in ay meel uga soo wada jeedsadaan qodobka kalena waxay ahayd fariin loo dirayo maamulka Somaliland iyo Muuse Biixi ayay ahayd
waxaa kaloo ayadana meesha aan ka dhadhansanayay in xisbiga wadani oo ninkan uu yahay asxaabta xisbigaasi wadani ragga ugu firfircoon ama baalaha uu ku duuro maadaama uu ka mid yahayna waxaad moodaysay fariin kale inuu u direeyey oo laftigoodu ay halkaasi ma garanaysaa fariintaasi ay moodo inay gaadheen markii aan soo ururino hadalka xildhibaan abiib fariinta koowaad ee ahayd shacabka awdal ku dhaqan waa dadka horta marka la dhaho Somaliland dadka ugu aqoonta badan way waana waxaa la dhihi karaa waa manbacii waxbarashada way waa sideedaba meeshii Somaliland marka la yiraahdo waa meeshii kale Soomaaliya ku faantay waxbarashadeedu tayo lahayd way laakiin hadii ummadii Soomaaliyeed baa waxa iska noqotay qabaa'il iska noqotay waxa iska noqotay ummad Soomaaliyeed oo ma garanaysaa jabtaba iska noqotay heerkana sideedaba ama dadka awdal degan sidii loo lahaa maxaan ku dhahay 20 sano ugu dambeeyay aqoon-yahanad tihiin waxaad tihiin dad waxbartay baad tihiin ninka aqoon-yahanka ma hadlo war Soomaali waxa ma taqaan Soomaali adeer waxaas ma taqaan meel kasta joogtaba ninkii waxa weeyaan aan xinaynihiisa fuulin oo xaqiisa dhacsanin wax cadaalad oo Soomaaliga Soomaaliyeed meel yaala sidaba ma jirto haddana wayba ka sii daran tahay qolada Somaliland-ku waxaan arkahayay shuyuukhdoodii ama dadkoodii waaweyn oo ku haya war miyaa diriir ka taa miyaa dir hadda fiirsi nin oo konton jir ah oo mid ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn yaa waxay leeyihiin war miyaa diriir ka taa Soomaalidu waxay ku maamahdaa waraaba daaliba dirintiisa loo tagaa dhulbahante nimankii la oran jiray faqashini iyo warsangeli adag beelii halkaan degi jiray dhulbahantu haba uga xoog badnaadeen ayay turturqeen hadda ka hor magaalada Laascaanood wata ogeyda taalada shuhadada dad lagu laayay maxaa ka raacay gooja cado oo ah ma garanaysa saldhigii ugu weyn ee dawladii Maxamed Saad Barre ay dhistay oo ay markaa isku haleynayeen hubkii isku haleynay lahayn Soomaaliya ku difaacanayna yay baqacad ka dareereen marka aniga waxaan leeyahay sideedaba hal maalin bicilka inta Soomaalidu ku maamahda war maanta xildhibaanada ku sugan magaalada Hargeysa ee 13 ah ee dhowr iyo 10 ee ka mid ka yahay xildhibaan Abiib haddii qorshaha ay beesha dhexe ay wado hadday ku talaabsato dhammaantood iska casilaan dhammaantood iska casilaan hadda ka hor baa waxaan waxyaabaha qaarkood waxaa jira gabadhiibu ay guur beeli baa jirta gabadhiinu mar ay guur beeli baa jirta waxa weeyaan hadda nimankan lagu magacaabo beesha dhexe nimankan lagu magacaabo xaqiiqa marka laga hadlo cidii wax dhacsanaysa un baa wuxuu ogoshahay laakiin galbeedka sideedaba waxay u arkaan daday iyagu leeyihiin inta Ilaahay ka sokaysa anigu marka waxaan leeyahay darbi baa idinku xeeran ree awdal waxaan leeyahay darbi baa idinku xeeran darbiga idinku xeeran jabiye waa sababtoo ah mar waxa weeyaan deegaanadii iyo dhulka Ilaahay idinku beeray yaa la doonayaa amxaare in heshiis lagu galo sodon maxaan ku dhahay 30% marka laga qaadanayo shirkadda Ethiopian Airways iyaga lagu qaadanayo yaa dhulkooda lagu qaadanaya barbar maysiyaan hadday barbar abalaamina isku xidhay lama ogolo marka waxa weeyaan dhulkoodii baa lagu qaatay riyaala kaahina 1 milyan baa loo dhiibay waa ninka horboodaya barnaamijka waxaynay waxa weeyaan idinku miina u qaal lahayn miina lahayn dhalinyaro gadooda miina lahayn dad ma garanaysaa duurka gaar adeer bahasha niman u jabhadaynin iyo niman ma garanaysaa qayrkii maanta iska celinin adeer waa lagu tumanaya marka aniga waxaan leeyahay idinku xaqu dir baa tiide maanta hadday talaabada qaadaan albaab idin fureen ka faa'iideysta 17 xildhibaanna waxa weeyaan ahays casileen idinkuna jabhadiina iyo dhalinyarada isku duubatoon duurka gashaan wax idin soo gala qadha ka geli waad maasan tahay Cornel Fargood iyo waliba Cabbaas oo ku horeeyay Shiine intaasna barnaamijkan aan ku soo afmeerina xogaha ku saabsan xildhibaan Abiib iyo waliba xilka qaadistiisa way soo taraysaa halkan ay ka daawan doonto hadii ay yiraahdo muuqaalkan la wadaaga saaxiibadii